بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu tahay 26 waxaan farxad weyn noo ah marka ugu horeysa si wada jir ah aniga iyo madaxweynaha dawladda galmudug inaan ugu hambalyeeyno shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadda 26 Juun ay ahayd markii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed ay xorriyad ka qaadatay gumeystihii gobol xaarkan uu noqday midnimada Soomaaliya ee dawladdii jamhuuriyaddii Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa usbuucaas xorriyadda bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in aan hambalyadaas la wadaagno maalmaha 26ka 27ka iyo 1da Luulyo runtii xorriyadda Djibouti ruuxadeedu waa xorriyad Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay waan u hambalyeeynaa madaxweynaha iyo shacabka Djibouti sidoo kale waxaan dhowreynaa 1da Luulyo aan u rajeynayno in ay ummadda Soomaaliyeed 60 guuradii ka dambeysay maalintii xorriyadda qaadatay ee noqoto inta markaan uga baxo hambalyada waxaa sharaf weyn aniga iyo dawladda Puntland u ah in maanta halka aan ku qabanno shir kuna soo dhaweyno madaxweynaha dawladda galmudug Axmed Qorqor iyo wafdi ballaaran oo la socday shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dawladeed sida dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka uu qorayo laba dawladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin wax badan ay ka dhaxeeyaan waxaa maanta looga lafogaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday guddiyo farsamana socon doonaan waxaa looga hadla arrimaha amniga arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii ku soo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada Gaalkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa Galdogob iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah waxaan ugu bishaareynaa ummadda labada maamul degan inay labada maamul ay si buuxda u wada qaateen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda xasiloonida iyo horumarka waxay kaloo rajeynayaan inay iska kaashadaan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliyeed iyo sidii dalka Soomaaliyeed xasilooni guud u gaari lahaa waxaana saldhig u ahaa sidii loo ciribtiri lahaa ururada argagixisada oo waayadan dambe caqabad u weyn ee dawlad Soomaaliyeed oo hana qaada ee ku taagan ay tahay aad baan ugu faraxsanahay wada hadalkan iyo wixii ka soo baxay waxaan rajaynayaa natiijo deegaanada ama labada maamul u soo hoyata iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed inuu noqon doono aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waana ku faraxsanahay kulanka aan maanta yeelanay waana rajaynaynaa in mirahooda aan dhawaan arki doono waa mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay kulankeena maantay madaxweyne Siciid Dani madaxweynaha dawladda Puntland iyo wafdiga ballaaran ee halkan ugu soo dhaweeyay aan yeelanay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dawladda Puntland sidoo kale waxaan rabaa inaan iraahdo asbuuca xorriyadda sida madaxweynuhu u sheegay oo ah asbuucii ama 60 guuradii xorriyadda ama maalintii 26kii Juun oo ah maalintii ciidda Soomaaliya calan Soomaaliyeed laga taagay ugu horeysay iyo maalmaha 27ka oo xorriyadda qaateen walaalaheen reer Djibouti oo qayb ka ah
xorriyadda Soomaaliya iyo kowda luulyo nagu soo fool leh waxaan la wadaagaynaa hambalyadaas guud ahaan meel kasta ummadda Soomaaliya ay joogto oon leenahay hambalyo sida madaxweyne nagu yiri ay taasi tahay maantay waxaan halkan ku yeelanay shir runtii la dhihi karo wuxuu ahaa shir miro dhal ah guul ah oo nagu soo dhaweeyey madaxweynaha Puntland walaalkay Siciid Dani iyo xukuumadda Puntland aniga iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xukuumadda dowladda Galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira madax kale waxaan wada hadalnay sida madaxweyne Siciid sheegay qodobo muhiim ah labada dowladood muhiim u ah guud ahaanna Soomaaliya dan u ah sida amniga iskaashiga iyo kobcinta dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta iyo guud ahaan xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya guul baan ka gaarnay dhammaan qodobadii aan ka wada hadalnay si buuxdaanan isugu afgaranay ama ugu heshiinay halkaa heshiisku lagu gaaray kuma eka hay-adihii ay kala quseeyeen ama guddiyo lagu talagalay baa sii wadi doona oo sii horumari doona oo u bedeli doona ficil iyo dhaqangal shirar kale iyo howlo kale oo badan oo qodobada aan ka wada hadalnay ka mid ah iyo kuwa si joogtaa loogu baahan yahayna waa sii wadi doonaa waa sii yeelan doonaa aniga madaxweyne Siciid waxay noo tahay runtii maalin taariikhiya oo labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka u ah maalin mari halkan ka soo baxay la xusi doono ay kala gaari doonaan waxaan kalsooni ku qabnaa halkan heshiisyada iyo qodobada aan ku gaarnay inay Puntland iyo Galmudug dhaafi doonaan oo ay Soomaalida in badan ka afci doonaan siyaasadda guud iyo nabadda dalka aad baan kugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne Siciid adiga iyo dowladda xukuumaddaada waana sii wadi doonaa kulamo muhiim ah oo arrimahaas sidaan hore u sheegay la sii jaan qaadaya si joogto ah waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah si isku mid ah iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga oo aan go-aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iideysan kareen dadkanaga hay-adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha allah aad iyo aad mahadsantahay madaxweyne soo dhawow mar labaad.